isku soo noqdo waxaana ciyaarta meel walba joogtay oo mar kale muuqaal cusub ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta kulamada caawa jira United-ka oo la iibsanayo nimankii Qatar ahaa ee baaqi Saint-Germain iska lahay oo markaa United daneynaya inay iibsadaan haddii ay dhacdo in United ay iibsadaan nimanka Qatar miyay ciyaari karaan Champions League iyaga iyo Paris Saint-Germain si wada jira warbixin dheer ayaan kaga hayaa Real Madrid oo caawa ciyaaraysa koobka kooxaha adduunka Manchester United oo caawa garoonkeeda xilli dambe caawa ku qaabilaysa kooxda kubadda cagta Leeds United Real Madrid oo markaan isha ku haysa arinta Erling Haaland iyo Manchester City haddii aan muuqaalka ka heshan oo la garay kana ka subscribe noo saar haddii aynu ku bilowno warbixinta nimanka ku aadan Manchester United iyo gadashada ay gadanayaan nimanka Qadariyaanka ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa miiska la soo saaray sanadkii la soo dhaafay markii milkiilayaasha iska leh qoyska Kaleser ee Manchester United laheen waan dhageysanaynaa dalabyada ka imaanaya kooxdan cid walba oo daneynaysa oo lacagteeda haysatana farta ayaa ka saarayna Java waxa miiska lacag waliya soo saaray gruupka Qatar ee kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain kuwa iska leh gruupkaas ayaa markaan daneynaya inay Manchester United ka dhigaan koox weyn oo markaan ku soo xiliyaan saaxadda Yurub iyo tartamada waaweyn nimanku lacag ayay la waalanayaan Paris Saint-Germain ayay kala kiciyeen marka gruupkaas ayaa la rabaa in Manchester United lagu soo diro Sheikh Tamim xeerta hogaaminayo ayaa marka Manchester United dalab rasmi ah ka gudbinaysa xilli taageerayaasha United qayb ka mid ah ay diidan yihiin dalabkaas laga soo gudbinayo kooxdooda maadaama Manchester United iyo baaqi Saint-Germain haddii hal nin oo wada yeesho oo gruupkaas ay ku wada biiraan ay dhibaato weyn ku noqon doonto kooxda kubadda cagta United iyo Paris labadaba maadaama tartanka UEFA Champions League labada kooxoodba ay wada ciyaarayaan maadaama ay kala matalayaan horyaalka England iyo horyaalka Faransiiska labadooda haday soo wada baxaan xeer waxa yaala ay UEFA ay soo saartay 1998 kaasoo dhigaya in labada kooxood oo halka shakhsi leeyahay ama qayb kamid ah share uu ku leeyahay inay ciyaari karin labadooda si wada jira tartamada Europe ee UEFA Champions League iyo Europe League marka option waxa jira in kuwa iska leh kooxda ay hal kooxood doortaan oo labada kooxood mid doora ayaa lagu leeyahay tii aad doorato ayaa tartankaas kaga qayb galaysa marka maxaa taas dib weyn ay ku tahay labada kooxoodba maadaama kooxda Champions League ciyaarayso ee lacag fiican ka helayso United-ka taageerayaasha qaarkood sida darteed ay ku diidayaan inay kooxdooda gataan gruupka Qadariyaanka ah ee Sheikh Tamim hogaaminayo marka horyaalka Ingiriiska markaan xifaaltanka dhinaca kale ayuu aadayayo Saudi Arabia waxay gateen kooxda Newcastle United halka City ay leeyihiin nimanka Carbeed nimanka Carbeed ee ka soo jeeda Imaaraadka marka United-na haddii Qatar gataan meesha waxa imaanaya xifaaltan kale oo qaliijka waa Carabta oo Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo meesha ku xifaaltamaya marka United-na arinta ayaa ku soo kordhay kulamada caawa la ciyaari doona waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ciyaaraysa semi-finalka koobka kooxaha adduunka kaas oo ka dhacaya dalka Morocco marka ciyaartaas waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta Al Ahly oo ayada ku soo guuleysatay koobka Champions League Africa Realna waxay haystaan koobka Europe ee UEFA Champions League halka caawa Real Madrid ay way doonto goolhayooda Thibaut Courtois ninkan oo kulankii Mallorca ay la ciyaariyeen iskuulaanta ku dhaawacmay xilli ka ninkii yiraahdo Militao iyo Karim Benzema iyagana dhaawacay ay uga maqayeen kooxda kubadda cagta ee Madrid ayaantan dhaawacay ayay la dhibaatoonaysaa xilli guud ahaan ciyaartooyda ka maqan ay noqonayaan Mendy Militao ninkii yiraahdo Karim Benzema iyo ninkan Thibaut Courtois marka xilli laakiin la leeyahay Karim Benzema uu soo kabanayo tartankan finalka waa laga yaabaa inuu ciyaaro marka kooxda kubadda cagta ee Madrid caawa waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee Al Ahly Qaahira marka ciyaartooyda qaarna waxa laga yaabaa inay finalka u soo laabtaan haddii ay u soo gudbaan tartanka dhanka kale tan horyaalka Ingiriiska caawa kulan ka tirsan ayaa la ciyaaraya Manchester United ayaa caawa Leeds United qaabilaysa xilli garoonka Old Trafford ciyaarta ka dhici doonta markay saacadu tahay 5 saac habeenimo United-ka shantii game ee ugu dambeysay ee Leeds United wajaheen afar way ka adkaadeen halna bareejo ayaa la galeen marka United caawa waxay daneynayaan inay adkaadaan oo Manchester City ku dhibca noqdaan oo kaalinka labaadna ku wada galaan sidaayo maadaama farqiga goolasha laga sara marayo kooxda kubadda cagta United oo booska saddexda iyo sida ku sii fadhinayaan laakiinse Manchester City iyo United caawa isku dhibcaay noqon karaan haddii United-ka ay garaacaan kooxda kubadda cagta ee Leeds dhibcuhuna wuxuu noqonayaa si isku mid ah min 45 dhibcood inay wada yeeshaan oo Arsenal ay u jirsaan 5 dhibcood xilli Man City-na ay iyadan ciyaarayaan habeenka kaleeto marka United-ka caawa guul ay gaaraan waxay uga dhigan tahay
inay nimanka City ahay ka daba tagaan xilli United ay weynayaan ciyaartoy muhiima sida Casemiro oo red card ku maqan iyo ninka la yiraahdo Van de Beek iyo Christian Eriksen oo dhaawacyo uga maqan marka United laakiin ninka ugu muhiimsan ee caawa ka maqnaanaya ilaa labada kulan soo socotaba waa ninka Casemiro ah Casemiro la'aantiisa Manchester United badana ma dhaqaaqdo inkastoo Manchester ay haystaan qad dhex oo fiican oo Fred iyo ciyaartoy kale ay haystaan laakiin Casemiro waa ninka meesha u kala kicinaya dhanka kaleetana wararkii suuqa warka ugu weyn waa kooxda kubadda cagta Madrid oo isha ku haysa laacibka reer Norway iyo xulka reer Norway iyo kooxda Man City u ciyaara Erling Haaland ninkan kooxda kubadda cagta Madrid heshiis oo waxay la gaareen si hooseeya oo 2024ka iyagu xaggooda ku noqonayo laakiin waxaa ka soo hormartaba in Man City ganaaxyo iyo dhibco in laga jaray iyo in heerka saddexaad iyo heerka labaad loo celinayo ayaa soo baxday markii lagu helay ciidan waxyaabo ay sameeyeen oo isdabamarin iyo musuqmaasuq marka Madrid isha ay ku hayaan oo ninka waxay daneynayaan in Man City hadii arintan ku fogaato ganaaxan iyo waxaan ku dhacaan inay ninka Bernabeu keenaan oo ka soo hormariyaan waqtiga ay sugayaan 2024 marka Real Madridna ninkan ay si gooniya u ugaarsanayaan waxay taageen Bellingham ina soo qaadano waxa nooga fudud bahaatan la joogo Erling Haaland akhyaar hadda muuqaalka heshan oo la garay kana ka subscribe noo sar goodbye